السلام عليكم. inta aanu kula wadaagin qisooyinka sidnaayada Israa'iil, inta aanu kula wadaagin qisooyin aan ka duwanayn kuwii aan ku arkaynay xabsiyadii reer Asad ee sidnaayada asalka, sida aabbahan ag taagan wiilkan ninkan garkayga fuurka leh oo uu leeyahay asagoo caloosha hooyo ku jiraan xabsiga galay. ninka intaan leegay garab taagan garkayga fuurka leh asagoo caloosha ku jiraan xabsiga galay. rag 37 sano kadib 40 sano kadib xabsiyada ka soo baxay, rag kumanaan sano ku xukunaa oo طبعا maxaabiis isdhaafsiga ku soo baxay. inta qisooyinkaas cajiibka aan kula wadaagin sidnaayada Israa'iil, fadlan muuqaalkan ila fiiri. waxaan rabaa inaan ku hormaro cadkaan. muuqaalkan markaad fiiriso, afar dumar dhalinyaro ah, ruuxdooda iyo siday yihiin, caafimaadkooda nafeed iyo caafimaadkooda jir ahaaneed markaad aragto, aad isleedahay waa gabdho saakii jaamacadoodii aaday, saacadu markay 12 subaxnimo yiri fasax ay heleen, kadibna hadda u barqaatay ay aadeen badda ayagoo u barsii saaran ay muuqaalo Instagramka Snapchat ay soo dhigeen iska qaaday. macna qofkii arka sidaas ayuu u malaynaya ruuxdooda sida ay u badqabto, naf ahaan, macnawi ahaan sida ay yihiin. laakiin dumarkan waa afar askariyaad Israa'iiliyiin oo Gaza lagu haystay. askariyaad jamc mu'annath saalim oo af Soomaali ku hadlayo. dumarkan waa afar markii aan arkaynay bilowga hore 7 Oktoobar la soo qabtay oo askar ahaa, macna xiriir askar ayay joogeen. ila sawir madane sanad iyo 3 bilood ayay duruuftaas lagu haystay, duruuftaas ay ku jireen, laakiin wajigooda siduu yahay ila arag. macnaha halkan waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo sida muslimiinta ay ula tacaamulaan maxaabiista iyo sida ayaga ula tacaamulaan. macnaha ila sawira kadib sanad iyo 3 bilood duruuftaas adag ee marinka ka jirtay sida ay yihiin arag. waa isla dumarkii qof walba oo hadlo galbeeda sidii ugu dambeeyay James Woods uu leeyahay, macnaha waa la kufsanayay. waxaad la sintaa afartan dumarka oo waliba askar ah, waxaad la sintaa caalim neerfaha Baakistaaniyada inaad qisadeeda maqasho. laga yaabaa Caafiya Sadiiqi oo Mareykanka ku silicsan oo hadda Baakistaan ka afduubteen, Mareykanka la geeyay, ka baxday macahadka Massachusetts, jaamacadda Houston, caalim macna ayadoo dhalinyaro ahayd cajiib ah, kadibna kun qis hada loo maleegay la yiri alqaacidaad ka mid ahayd, xabsiga lagu bahdilay, la kufsaday, intaasoo wax lagu sameeyay. bal xitaa macluumaad ayaa muujinayo in wixii ay ka dhaleen siday u silcinayeen u kufsanayeen. waxaad la sintaa dumarkan sida loola tacaamulay, la tacaamulkii Mareykanka dumarkii Ciraaqiyiinta kumanaanka uu ka bixiyay sijnigii ama xabsigii Abu Ghraib ee 20 kiiloomitir u jira Baghdad. waxaad la sintaa kumanaankii dumarka Mareykanka sidoo kale uu ka buuxiyay xabsiyadii Bagram, yani xabs walbo niyadada ku soo dhacayo ayaga siday ula tacaamulaan. waa isla dumarka mar kale noolo walbo galbeed oo hadla uu ku leeyahay waa la kufsanayay, oo xitaa aad arkayso macna ayaga waxa aaminsan waxa shay aan ku magacaabi karin stereotype. macna qofka hadiiba muslim yahay, yani sida inaan wadooyinka isku kufsanayno kale. yani hadda xilliga Bush oo ku duulay Afghanistan, Iraq, hadii aad weydiiso muwaadin American oo Bush ah taageersana Bush, Mareykanka muxuu ugu duulaya Iraq, muxuu ugu duulay Afghanistan, waxa laga yaabaa ku dhaho wadooyinka isku kufsanayaan. bal ila sawiro yani hatta saxafiyiinta galbeedka kuwa faafinayay waan arkaynay in iska dhaaf wax kale markii laga soo tago jamaacada xaada ka bilaabanaysa marinka joogto, markii askartan laga soo tago Falastiiniyaadka inay kufsanayaan sidaas ay kuliyeen ka waran. macna ma qiyaas kartaa. macna waxay aaminsan aslan watii aan sheegnay hadii aslan yani waa siday aaminsan yihiin kufsi waa kuwa marwalba ku soo celiyo shay muujinayo, laakiin dumarkan siday yihiin arag, siday u badqabaan, siday naftooda. bal xitaa waxaad la sintaa ayagoo waliba askar ah dumarka rayidka Falastiiniyaadka ah ee ku jiro xabsiyadooda ku jira ila sawira. macna xabsiyada macna mashruuca gumaysiga ku jira ila sawira sidoo macna ula tacaamulo Bashar al-Assad sidoo ula tacaamulayay dumarka macnaha muslimiinta Suuriyaanka sidoo ula tacaamulayay. dhinaca kale macnaha maxaabiista sidoo ula tacaamulaan iyo muslimiinta sidoo ula tacaamulaan fiiri shay waxa runtii u fiirsasho leh. markaan aan ku laabano qaybta kale mawduuca, waxaa sharafno amaanta la tacaamulka sponsor heer sare ah oo lagu magacaabo Maslax Executive Suites Limited, qaabilsanna dhinaca guryaha real estate-ka, shirkad guryaha dhisto, kana howlgasho waqtigan Nairobi, Kenya, gaar ahaan xaafadaha Parkland iyo Eastleigh. waxyaabaha runtii cajiibka ah waxaa ka mid ah keenayeen inaad doorato la tacaamulka Maslax ahmiyad siinta bi'o mujtamac muslima sida masaajida, madaaris, supermarket, gym. waxaad dhihi kartaa macnaha deegaan iswato. waxay noo sheegeen in haddii markaas aadan haynin qiimaha guriga, waxaan ka hadlaynaa dadka danaynaya arrinkan
aad si tartiiba isaga bixin karta. Haddii uu guriga dhammaado adigoona lacagtii bixinin, lacagtii ayna kaa dhammaanin, shirkaddu waxay kuu ogashahay in aad guriga soo degto ama aad kirayso. Macnaha ma qiyaasi kartaa? Runtii waa fursad cajiib ah oo aanan laga helaynin shirkadaha kale ee guryaha dhiso Nairobi markaan ka hadlayno. Fadlan wixii tafaasiil dheeraad ah nambarkan hortanada ka muuqda kala soo xiriir. Haddana ku soo dhawaada mawduuceena. haddaba markaan ku soo dhawaada qisooyinkan aan idinla wadaagayo ee ku aadan boqolaalkaas Falastiiniyiinta ah ee maxaabiis isdhaafsiga oo soo baxay xabsiyadaas oo intooda badan ku xukunaa xabsi daa'ina badan. Yani Israa'iiliintu waxay isticmaalaan shay ay ku magacaabaan yani inaad aragto qof ay ku xukumeen 4 xabsi daa'in, 5 xabsi daa'in. Yani inay ku leeyihiin waxaan kugu xukunay 60 sano, kadibna 60 sano kale aan kugu darnay, kadibna 60 sano kale, micnaha qof ku xukuman 4 sanaad. oo arkaysa rag micnaha boqolaal sano ay ku xukumeen micnaha yaa nool, laakiin waa wax fursad in aadan u helin inaad ka baxdo. raggan hadda intooda badan sidaasay ahaayeen, rag muqaawimiin ah, wax iska caabin, ama xitaa qof walba yani xitaa ila sawiro daanta galbeed sida taariikhda gumaysi walba lagu yaqaano bini'aadam, taariikhda bini'aadamka soo maray gumaysiga Afrika aan ku arki jirnay in qof walba oo gumaysiga diidan, qof walba oo adoonsiga diidan xabsiga uu galaayo, xabsiga aad galayso. يعني haddii aad u fiirsatana xabsiyada meelaha ay ku yaalaan waxaad arkaysaa intooda badan inay ku yaalaan bartanka saxaraha annaqabe koonfurta Falastiin. dhulkaas saxaraha ayay ka dhisayeen xabsiyada, kadibna dadkan inta badan raggan hadda xabsiyada ka soo baxay ee dhiigga ku soo baxay micnaha kadib dagaalkaas imaaday barya kuma ayna soo bixin. waxay ku jiraan yani xabsiyadaas bartanka saxaraha ku yaalo, xitaa eheladooda mayna booqan karin, mayna tagi karin. yani hadda ila sawiro muuqaalkan yani aan ku soo yaro bilownay aabahan ninkan dhalinyarada intaan leeg dhowr 20 sano jirka asagoo caloosha ku jiro xabsiga galay, waliba rag ugu axkaanta yara yani. oo hadda Falastiiniinta inta badan yani ileen 20 sano hadday ahayd 20 sano maxay tahay iyadoo la fiirinayo micnaha kumanaanka intaas sano ku jira. waana shay kale oo kuu muujinayo micnaha xaaladda shacabkaas uu wajahayo, wax kasta oo u horaayo sidii u xoroobi lahaa. intaasoo bilood wax kasta oo galbeed hub lah meeshaas la geeyey ay isdhiibin, ay dagaalamayaan. sida uu yiri sheekh Falastiini ah oo Bassam Jarraar lagu magacaabo, kelmad yar oo xaajada uu jeediyay kadib istaagida dagaalkan uu yiri micnaha sida caalamka maanta dad badan ay u qadariyaan Che Guevara oo kale, sida ay u qadariyaan micnaha halgamayaasha taariikhda soo maray oo qof walba uu ugu daydo. dagaalka Gaza wuxuu ka dhigan yahay micnaha shay taariikhda cid walba wax iska caabin, xitaa muslimiin kaliya ma ahan, cid walba wax iska caabinaysa micnaha darsi culus ah. wax ka soo dhacay inaadan isdhiibin, in aadan fiirin cidda kula dagaalamaysa awoodeeda intay la egtay, xulafadooda intay la egtay aadan fiirinin. micnaha sida Guevara uu taariikhda u galay ayay dhacdooyinkan Gazana taariikhda u galeen. teeda kale inta qodobkan aan ka bixin waxaa jira shay yar oo fiirsasho leh oo mudan in aan mar kale u sacbino jamaacada xaada ka bilaabanaysa marinka ku sugan YouTube-ka magacooda una jeclayn oo aad qiyaasi kartaan in ayagoo sidaas u go'doonsan raggooda inta badan ay dhinteen, raggii ugu sarreeyay la laayay, go'doonsan xaaladaas wajahayay, duruuftaas adag wajahayay, ayay haddana muddo dheer waxay galeen waan wada hadalkan micna arrinkan maxaabiis isdhaafsiga ku saabsan yani intaasoo bilood ayay ku soo jireen. way isdhiibi waay micnaha hal shay oo micnaha loodin away diidan inay saxiixaan. mid Israa'iili ha qoray uu yiri shay waxa way cajiib ah, yani shayga ugu adag waa inaad wada hadal la gasho jamaacadaas Falastiiniinta inaad la gasho, sababtoo ah kama tanaazulayaan, xaqooda kama tanaazulayaan. yani waxaad la sintaa meelaha qaar waxyaabahan arkayn inaad maalin maqasho hal mar waxaa lagu soo toosay heshiis dawlad micnaha ana maalan ka Soomaali ahaan 600 sano loolan jiritaan kala dhaxeeyo badahaada iyo يعني wax walba kugu saabsan u hanqal taagayso. waa la kulmay warbaahinta aad ka arkayso waa la kala saxiixay aad arkayso ayadoo la iska indhatirayo yani andana xitaa weligeed ayna ka hadlin masiirka ogaadeynaya Soomaali galbeed dhulka intaas leeg hal mar aan laga hadal. laakiin raggan ayagoo duruuftaas wajahayay ayay yani heshiiskan saxiixeen, micnaha ay kula jiraan dhahno wada hadalkaasi ku jireen oo mar walba lagu noqonay ilaa qodobkan ma aqbalayna ka noqdo ilaa midkan ma aqbalayno. oo xitaa wataan arkeen ku walba is caasilay dhinac kale mowduucan uga hadalnay mid walba uu leeyahay waxaan soo caasilay sababta waxaan u aragnaa jab ayaan u aragnaa jamaacadaas inay guuleysatay ayuu ku leeyahay.
waxaa kasii daran muuqaalo yani aan halkan hadda kusoo bandhigi karin iyadoo la fiirinayo youtube-ka iyo qawaaniintiisa raggaas micnaha markii la dhiibayey maxaabiistaas israa'iiliinta markii la dhiibayey yani dabaaldega ay sameynayeen oo siday sameynayeen bal xitaa Netanyahu ku tilmaamay arrinkaas waa daandaansi dowladaha damaanad qaaday yayna ha la hadleen jamaacadaas micnaha si ay ugu dhahaan yani waxaan ayna muujinin micnaha midaas waa karaamada mar walbood karaamo leedahay weligaa ma hoogaysid micnaha mar walbood karaamadaada iyo sharaftaada iyo qiyamkaada diintaada islaamnimadaada madax bannaanidaada aad ku dadaasho aad ahmiyad siiso karaamada haddii aad dhimatana si waxaad ku dhimanaysaa micnaha waxaad ku dhimanaysaa yani wadada ugu fiican lagu dhinto haddii aad noolaatana adiga shacabkaada karaamaad ku noolaanaysaa laakiin cid walba waxaad fiirisaa isticmaar micnaha u maleynaysay in wax laga faa'iidayo يعني هذا تاريخ ده مركا كهدلينا سيد محمد عبد الله حسن أو كلا يا دراويش معناها تلو ما حاسوسة التاريخ ده ولقى ما أركتي بل حتى هدي أتراديسو صومالي دي إنجليز كبر بردقال لما يسي معناها حقيقي كودن بيين تاريخ ده لما أنت نواتي أنا أفر لبعض تنصح كوهيسي إنه دراويش إيه سيدي قبية دودي يعني تلو صومال أسكر صوبت إنجليز كمركا دم حتى وحلا لها مركا دم بقى يعني دراويش جلعيوة معناها صومالي دي kuwa Soomaali Ingiriiska oo qortay oo ahaa yani waxyiin aad taqaano micnaha la dagaalamay sayidka ayaa dhulka ay micnaha dhul mareen ay u ahaayeen rag waxa jira hadli jiray oo maanta xagee ku dambeeyay taariikhdooda aawi taariikhdoodii yani sayid Muhammad iyo Daraawish waxaan ka ahayn ma taqaana bal xitaa generaalada Ingiriiska ah naqaan sida Cofield oo kale iyo macnaha waxay ku soo caan baxeen xitaa inuu sayidka dilay macnaha faa'iidada aslan ninkaas waa in cid kale aqoon lahayd ma lahan aslan generaalada kale xitaa Ingiriiska yaa yaqaan xitaa qaana ma lahan yani sida uu yiri Allah yarxamo Umar al-Mukhtar ki Liibiya Talyaaniga oo kulaha macnaha wuxuu taariikhdayda aniga way ka dheeraan doontaa taariikhda kuwa idilaayo kale kuwa idilaayo macnaha هذا جرازياني يقان فيلم كون markii la sameeyay un baa magaciisa la soo sheegay Rodolfo Graziani iyo kuwa kale macnaha yaa yaqaan bal xitaa waxaa jirto oo waliba majallaad bariid barqa la yiraahdo sawiradeed aan ku arkayni Liibiya rag culimo macnaha magacooda culimo ah oo soo saaray fatwooyin way ku qornayd macnaha bariid Liibiya bariid barqa xilligii Umar al-Mukhtar ay ku qorantay macnaha markii la soo qabtay in micnaha ay ugu tahnideynayaan umada madaxii micnaha al-Bughad ama al-Khawarij ku qornayd micnaha ay Umar al-Mukhtar in la sawiro in micnaha la soo qabtay talo kuwaas ayaga hadda kuwa isticmaalka Talyaaniga la socday Liibiya taariikhdooda aawaya yaqaan cid walba maanta waxay taqaana Umar al-Mukhtar عنق wadada socday weydii Umar al-Mukhtar ma taqaana ha ولا حتى ما أنت أنا ما قاعد أقصى عمر ما أنا أي قف مسلم مهما كان حتى هدون مسلم أهين يعني عمر معنا قف مثل أجنبي مركز برنا وكلا عمر عمر المختار أم حلقنا وكلا عمر الشريف كي جلاقة هيك معنا عمر المختار ويقانن لكن يا يقان طلياني جنرال دودي يا يقان الليبيان كلا سعد اتقانا ما لها مدز معناه هو وصلنا إليها كون كان هذه أدخاء أنت عدك حوص هي سمالها وكو أنبياء كو دعيسان جري وانا شيء معناه وانا شيء قبول موجناي واجعل لي لسان صدق في الآخرين معناه وانا شيء قبول موجناي لكن عمل هذا يعني هذا إلا صور حتى أما أن أسي قدمنا إن معناه آد إنكو قد إيري مرحبا سيدو كاله نين لغو مقعاب الرائد السعدي وحن كنت المامي كرنا أما أن ماقعي سبا أصلا وقدوميها وهقانك معناها محابيس فلسطين عميد الأسرى أيضاً محابيس فلسطينيين تكجري حبسية داس صدن يتضبصنا أي كجري حبسية إلا صور مدن أي مرو صدن يتضبصنا أنا محانه هو ضد بدنا موضوع عن دقي سنة أيام إن صدن يتضبصنا أي جارين ضد بدنا محيط سجاشن الشن بقولك وحن قياسه صدن يتضبصنا إني جارين أذيقون الطلانين أيون كان حبسية قلي وقلي منها إنه كتنازل حرية ديسة إنه كتنازل كرامة إنه أجيب أدون كان معناها مالما إنه يتهاي يا إما نتكرامة كنولاته يا إما نعيده كهوس مرت هيات من المذلة وآمين سي معناها إن أنا كنا ولانين معناها نكاس سهيوني قميسي إنه نقو استاغو وحوربا أنه قسمي
soddon iyo toddoba sano. weliba sida ay qorsheynayeen aan soo sheegnay ahayd macnaha khalaas xabsida aan ku dhintay. Yani ha u malaynin raggan hadda aan ka hadlayno, ha u malaynin ninkan raa'id asacdi ee 37 sano xabsiga ku jira, ha u malayn macnaha waqtigiisa inuu dhammaaday oo khalaas waqtigaada wuu kuu dhammaaday ee baxay tahay. ee waa qori caaradii ayuu ku soo baxay, barye kuma una soo bixin. mustacmiriintaas barye ma yaqaanaan, barye ma yaqaanaan. sidoo kale yani 23 sano kadib falastiini qoyskiisa la kulmaayo, ehelkiisa la kulmaayo. yani maxaabiista falastiiniyiinta ku jira xabsiyadooda rag dumar xitaa ciyaal ayaa ka mid ah. ila sawiro mina oo galbeedka u arko dimuqraadiyadda keliya ka jirta mantiqada bariga dhexe ay ku leeyihiin. qaar ayaa يعني 11,000 ayaa la gaarsiiyay tirada falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil. 11,000 kumanaan xabsiyadaas ay ku dhinteen. laakiin waa dimuqraadiyadda kaliya bariga dhexe. galbeedkan uu aaminsan yahay sidaan sheegnay. waana darsi runtii mar kale aan aniga inaan ku xusuusiyo aan rabo. galbeedka haddii aad fiiriso macnaha saxafiyiintooda, warbaahinta kala duwan, mufakiriintooda, jilayaashooda, macnaha aslan adiga macnaha aslan maxaa tahay agtooda, maxaad ka tahay? waa tii aan kuu sheegay saxaafadooda xitaa qof baa xitaa maraykanka soo sawireen arkayay wargeysadooda, hal qof hal wargeys oo cinwaanka ugu horeeya ku soo qaadaya ma lahan shay macnaha falastiinigaas la xiriira, wax ka galay ma lahan. sidoo kale ayuu waa tii aan kuu sheegayay macnaha mu'abadaadka ay ku xukumaan. sidoo kale ninkan falastiinigan wuxuu ku xukunaa 3 mu'abadaad. يعني كان محكوما ب3 مؤبدات. مؤبد أبدي معناه وحكو حكونا لحدا لقدر لحدا سنة. إيش حساب هذه وحكو حكونا لكن ركبة قدم بهي شيرة وحاجر حسد مضن. يعني طبعا بقلال كان هذا أنمو سوى قاضي كرو حكمد الضمر بدن أيا كمد أو حتى قاري كمديهين جبهات اللي قوم على الجبهة الشعبية أو حتى جبهات إلى هير أفكار شيوعي له لكن ويسود هايين حكمد أستوك هلا توبنيات ضمر فلسطينيات مسلمين تصوح إسكاع بين أستوك هلا. أنا كان مركان أرقني أيا وحصاب حدي سوريا كذب وحصاب حدي منها weligaa ma aragtay macnaha maalan aan dhahno urur feminism 24 sac ku baaqay dumarka in la xoreeyo oo weligaa qof dumar xabsi ka soo day weligaa ma aragtay. kumanaanka dumarka ah ee Falastiin macnaha Suuriya xabsiyadooda waxa ka soo day raggaas. Gaza macnaha dumarka Falastiinta waxa ka soo day raggan. laakiin weligaa ma aragtay dhinaca kale oo dumar muslimiin ah xoreeyay. mustaxiil inaad aragto mana arkaysid. laakiin 24 ساعة waxay ku qaylinayaan yani xorriyada ay sheegayaan waa in wadooyinka la isku fuuro, in aan isqaawin, dumarka isqaawiyaan, dumarka naga isqaawiyaan, min xorriyada waa midaas. oo xitaa hadda fiiri maalin dhow waxa kulmaayay mina waan aqliyadii aaminsan yihiin wallahi alazim uqsimu billahi alazim yani mas'uulkaas dunida muslimka markaan ka hadlayn hadii uu og yahay ninkaas galbeedka ee shucuubtaada waxa uu ka aaminsan yahay والله مقعيس حد إسكاد فيني لك كل ما أنا ويكعرر لهاين مالين دو أسبوعا وحكا دعاي معنا دافوس وحا دعاي شر قالوا أنت بدن لقبتو تي أركين وحكا قيب قالي سوريا مركي أقوه الرئيسي ومثلا أحمد الشيباني وزير الرماه دي بدا سوريا مقال وحاجرة أصيغي توني بلير إساق فرديو تيدا كالي waxaad arkaysaa aslan waana waxyaabaha hadda macnaha dhacdooyinka Suuriya kadib in dadku ay la yaaban yihiin saxaafadu ay leeyahay macnaha fasaaxnimada Ahmed Sharci oo kale Ahmed Shaybani yani macnaha Suuriyada cusub sababta waa shacabki aqoontooda thaqaafadooda fikir macnaha way la yaaban yihiin macnaha dadkan markii ugu horeysaan arkayna dal Carbeed sidaan sababta dadka inta badan hogaaminayay yaa ima jawaasiis yaa ima dad macnaha ku imaaday qaabkaas ku imaaday waasita ku imaaday oo waxay
baxyin aan la arag. haddaba axmed الشيباني iyo توني بلير معناها يعني ila sawiro xorriyad iyo xuquuq ku muxaadaraynaynin micnaha aslan mujrima. توني بلير ijraamka uu ka geystay ciraaq uu ka geystay afghanistan bush daba orday يعني kadib suuriya oo intaasoo sano xitaa markii taariikhda yara fog laga soo tago macnaha 60 sano qoyska reer asad intuu hogaaminay markaan ka soo tagno macnaha 14 sano u dambeeyay ayadoo waxaasoo gumaad ay ka dhaceen uuna isweydiinin. su-aasha uu weydiiyey ma taqaan axmed الشيباني uu weydiiyey wuxuu leeyahay suuriyada cusub macnaha dumarka sidee la tacaamuli doontaan. waa isla ragga kumanaanka dumarka muslimaadka xabsiyada ka soo daayay. معناها أنا وحان ربع halkan inaan ku tuso caqliyada insaanka galbeedka Tony Blair uu leeyahay dumarka sideed oo la tacaamulay waxaan ka soo baxnay 14 sano oo nus milyan Suuriyan ay dhinteen kumanaan dumar ay kamid ismuuna weydiinin kumanaanka dumarka Asad uu dilay yani talow xaalkooda iga warrama ma una dhihin sideed oo la tacaamusheen ma soo dhaweyseen macnaha ma una dhihin kumanaanka dumarka xabsiyada reer Asad ka soo baxay ma una dhihin. Tony Blair wuxuu yiri dumarka sideed oo la tacaamulaysaan. laakiin axmed الشيباني ma ahan jaasuus raqiisa ma ahan oo yani awoodo isticmaal ay ka dambeeyaan ma ahan waa nin suuri shacabkaas matalayo mafaq aqli leh. wuxuu yiri wuxuu soo qaaday qof dumar yani kacdoon kamid ah طبعا oo jagooyin hayso عائشة الدبش ما أهيد أو هيسا جاكادا الرماح دومركا وأتري يعني حوير أنا سيداس أنا نومن الشيء سيدا ديك نومن الشيء سيدا يجري صوبت شعب سوري ومتلايا طرطور ما أنسى إدهان نين كان صدح وحكونا صدح مؤبدات صدح سنة وحكونا معناه وحكونا اللحدا القدر أيكو حكونا لكن ما أنت الحمد لله واحر لأنه رجع كدم بهي. sidoo kale 40 سنة كدب متكمل sidoo kale عميد الأسرى الفلسطينيين ومعتقل منذ 40 عاما بشكل متواصل محمد الطوس qaar badan ayaa waxa kamid ah macnaha heshiiska la isdhaafsay hadii aad caalamka Masar aragto kale waxa kamid ah in yani Masar la geeyo mubcadiin ayaad maqlaysaa kuwa ugu nasiibka badan maxaabiistan hadda xabsiyada ka baxay waa kuwa la geeyay marinka Gaza oo waliba sidaas u burbursan iyo kuwa macnaha wadamada kale aaday qaar xitaa yaama wadamo kale heshiiska oo kamid ah in loo wado ragay u arkaan macnaha inay muqaawimiin macnaha wax iska caabin inay yihiin. ama kuwa daanta galbeed tagay daqiiqad walba waxay u saaran yihiin macnaha qarka in mar labaad ay xiraan hadana ma ahan Israa'iiliinta xitaa ma ahan sultada Maxamuud Cabbaas ila sawira mudane sultada Maxamuud Cabbaas ee wan Falastiin inay matalayso waxay mamnuucday qoysaska ehelkooda macnaha ehladooda kadib intaas san xabsiyada inay dabaaldegan ay mamnuucday ayadoo aad uga xun yani hadda sultada wali maalmihii la soo dhaafay waxay maraysaa marxalad bahalnimo ah sababtoo ah waxay filaysay maranka in loo dhiibi doono kadib markii dambas laga dhigo kadib markii shacabka dhulka lala simo in dawlado aad qiyaas kartaan carbeed hadda keenaan macnaha sultada halkaas loo dhiibo laakiin ma dhicin macnaha sultada hadda waxay sida bin Gavir oo uga xun yahay macnaha dagaalka inuu istaagay iyo wallahi alcadiim uga xun tahay waliba hadda maalmahan waxay marayaan marxalad waali ay marayaan ninkan sidoo kale macnaha 40 sano adi ma gaartay ani ma gaar adi ma gaarin dhamaanteen 40 sano ayuu xabsiga ku jiray qiyaas kartaa sidoo kale 20 sano Abdulmuiz al-Ju'ba 20 sano ku jiray xabsiyadooda teeda kale waliga yani 2011 hadii aad xasuusto askari waxa jiray jilcaad shaaliid lagu magacaabo oo
la dhaafsaday oo xitaa waagaas ayuu soo baxay Yaxya Sinwar waagaas soo baxay 23 sano asaga naftirkiisa xabsiga ku jiray maxaabiis isdhaafsiga hal askari ayay Falastiiniintu waxay dhaafsadeen waliba jamaacada xaad ka bilaabanayso ay Gaza ku haysteen meeqay ahayd wallahi numberka 1000 ila sawir macnaha 1000 iyo 12 macnaha 1000 iyo wax saas 12 wax saas kale oo ahaa macnaha numberka la dhaafsaday lagu daray kuwan hadda boqolaalkan weliga ma aragtay laakiin Fatax oo xaraka cilmaani ah weliga ma aragtay hal qof oo Fatax ay soo deysay ama wada hadalkooda ay ku soo daayeen ma jirto waa shay macna kun shay aad kala soo bixi karto kala aad kala soo bixi karto qisooyinkan ayaan jeclaysiinaan idin la wadaago وأنا عمر إنشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته